iyadoo ay beryahanba soo yeedhisay qayladhaanta abaarta ee ku dhufatay gobollada bariga Somalilan ayaa waxaa isxilqaamay oo taakulayntaasi abaaraha lagu caawinayo ka soo jawaabay qaar ka mid ah haweenka reer Jabuuti ee ku dhaqan caasimadda Jabuuti waxaana taakulayntaasi ku ururiyeen 2 milyan iyo 200 oo faranka Jabuutiya iyo dhar ay ugu tala galeen dadkaasi abaaruhu ku dhufteen ee gobollada bariga Somalilan waxaana taakulayntaasi soo qaban qaabiyay oo baaqaasi ka jawaabay haweenka ku midoobay ururka Ilays Maasha Allah oo iyagu qaadhankaasi lacagta iyo deeqdaasi dharka ah u soo ururiyay walaalahooda abaaruhu ku dhufteen ee bariga Somalilan intii ay socotay munaasabadda deeqda loogu ururinayo dadka abaaruhu ku dhufteen ee ku dhaqan bariga Somalilan ayaa waxa ka hadlay dadkii iyagu soo qaban qaabiyay ee hormuudka ka ahaa in taakulayn laga bilaabo caasimadda Jabuuti oo lagu caawiyo walaalahooda reer Somalilan anigoo gudoomiyihii ururka Ilays Maasha Allah inaan walaalaha iyaga maanta dhibaatada ku dhacday aanu ka jawaabno inuu Ilaahay maanta dadkaasi raxmadeeda Ilaahay u soo diiyo oo Ilaahay abaaraha maanta aanay weligeed la arag maanta Ilaahay ummadda ka saaro ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay marka iyagana waxaan jecelahay inay maanta isgarab qabtaan oo maanta calooshooda wanaajiyaan halkan waxaan ku qabanay abaarihii tabaruca ahaa ee Somaliland waxa weeye hablaha yagii reer Jabuuti haweenkayaga halkaa taagan iyo in naga maqanba in kooban oo reer Jabuuti aanu nahay kolka waxaanu maanta halkan ku ururinay 2 milyan iyo 200 oo faranka Jabuutiya lacagtan 2 milyan waxa soo ururiyay hablihii Somaliland ee reer Jabuuti lacagtaana waxaan geynaynaa Hargeysa ay hablo iga soo dhiibeen waxaanu ku wareejinaynaa guddida abaaraha annagoon gobolna sheegaynin waxaanu sida u kala shilcsan yihiin dadku culimada hawsiiso waxaa intaasi lagu soo gabagabay barnaamijkii loogu talagalay tabarucaadka abaaraha ee ku dhuftay bariga Jamhuuriyadda Somalilan Maxamed Jaamac Waale telefishinka qaranka Somalilan Jamhuuriyadda Jabuuti